السلام عليكم أنا أمد الصومالية waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ku xanimanahay gabar Soomaaliya waxaan ku xanimanahay Liibiya meel xun aan ku jiraa godka 17,000 ayaan ku xanimanahay ayaan ku xiranahay umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan aniga xabad ayaa ugu socoto waa daragtiin waan xiranahay saas oo dhibaataysanahay inta kale waxa idin sheegay aniga waxaan haystaa 8 maalin oo qol ayaan haystaa 8 maalin haddana waxa la iga soo diray aniga waan dhimanayaa because أنا الله ما نجوا حبض لي يقولوا فطور ماذا حلا يقولوا فطي مع هذا الله يدو ستيد ما ننتل إيه قبتي هدي أي لما تنا أنا وقت يوم كي أو لما ذني حبض أي اللي يقولوا فني يعني كوحمنا مخر وقلا ده معارض كأي أو هذا كسر جد الدولة الليبية كواساي هاستان وأدين بريا عمد الصومالي وحنك السنة سيد أو نحريس تلاقين يجود باديان عدو عندي سأم كجرو شد عريس ونكهل وحدا وابين سحماهن lambarka waa lagu qaraabanaya dada baahi heesa baahi anaas waxaan la siiyo oo beentood ay tahay laftirkood baahi leehaysa waa kana wuxuu leeyahay dadka meeshooda ku soo sheergareeyay lambarka ku qoranna dadka meesha ku soo sheergareeyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دخالي وإذن سلامين البوتين ذا كجوكتان سودو هذا يا إذا لي هاي مركوات دي مرلوات هلك أيضا ونسان ويوتيوب شانل كده فقوات وفشيال سوري دوادا أصحاب دخالي هان هلما منها هنا شانل سبسكرايب يسارتان شير يلايك كومنتينا عاديلا وذاكتان سوري دوادا يا إذا لي هاي مركوات دي مرلوات هلك أيضا ونسان وشانل كده فقوات وفشيال waxaa idin wada video cusub oo jeclaystay inaan ka hadlo maadaama inaan ra'yiga ka dhibto aad soo jeclaystay adinkana aan la wadaago marka soo wada ayaa idin leeyahay channelkana subscribe iyo saara share iyo like commentina ila wadaaga waxaan jeclaystay inaan ka hadlo labada wiilasha walaalahayga ah ee barta social media aan ku walaaloonay Liibaan Aadan Cali iyo aabaha oo ah majaajiliste وين أو مرر بدن أنا ويريسا يعني وين بنت أصعد وين شري برنامج كأول حياة أي هذا الله إسبيدير سنين يقومين تا يهالكسي بحق الحياة يعني جلستين عن الوداع سو هذا أصحاب تخليقة channel كنا سبسكرايب يسارو شير كنا وسيقبتو فيديو كنا إلى قرية hadalkan dhaxyaala walaalahayga Liibaan iyo aabaha oo ah laba qofood oo maanta waalidkii wiil isku ah balse barnaamijyadiisa u dhaxyaalo waxaan jeclaystay inaan kaga hadlo sida ay ila tahay iyo sida ay noqon karto Liibaan waa wiil yar abahana waa nin weyn macnaha aqligiisu u kala go'o balse laakiin sida hadda fiidiyoda ku muuqatay asleeyahay macnaha hadda weynin sanadka ama weynaanta waxa la sii karaa liicaato asxaabta soo dhawaada marka hadalkan maamadan la caawinayo hooyo Soomaaliyeed dhibaataysan oo gabadheeda lagu haysto Liibiya aada u xumahay asxaabteeda qaaliga waxa jeclaan lahaa inaa u share gareysaan fiidiyoyadaas maamada ay ka hadlayso kan u share gareysaan si loo caawiyo qof walba Soomaali ahna oo kaalintiisa ka qaato hadii waxba awoodin hataa share waa muhiim in u share gareyso fiidiyoo walba meel walba lagu hadlayo ama hadalkeedu uu yaalo in u share gareysaan soo dhawaada tan maanta u dhaxaysa aabaha iyo liicaato ma ahan mid hada balse laakiin waa sheeko horay u dhacday oo hadda ka hor ma dhaween waxay ahayd tamar ay ku qabsanaysay farxiya fanaanadeena farxiya kabiire show ay ku qabsanaysay Hargeysa aabaha meeshaas oo ka soo qaatay fiidiyoo yar mursamusi wax ay sameeynayay iyo masoo show afshilmay ma wax saasi ahayd dagaalka halkaas uu soo bilowtay balse laakiin aabaha ayaa wax u dhaqmay qof aan macnaha qof aan weyneen oo qalbigiisu kala go'in waana ka xumahay inuu maama la caawinayo oo soo dhawo maamadan la caawinaanteeda lacag ayaa lagu qaadanayaa dadkan caawinayna ayaa wax ku raadinayo تاوه بين وصبتو قف مانتي قف عاونايو سيدا لمبرك خدو ويلشان إنو شيغاين
balse laakiin lambarada maamada ay ku soo qoreen lambaradooda ku soo qor lahayn hadii ay ka wax rabaan sida maraad lahayn maamadaasna waa la caawinayay asxaabta waxaa jeclaystay inaa fiidiyowgaas soo daawataan aan soo aragtaan sida ay tahay shida cabays una ka hadlay wuxuu dhaawaa been sax ma ahan lambarka waa lagu qaraabanayaa dad baahi heesa baahiyanaas waxaan la siiyo oo beentood ay tahay laftirkood baahi leehaysa waa kana wuxuu leeyahay dadka meeshooda ku soo sheergareeyay lambarka ku qoranna dadka meesha ku soo sheergareeyay maamada baahi ma heesa ayaga baahi heesa oo dhan anaga baahina ma heesa alxamdulillah umadeena xanuunsan wax waa ku caawinaa sheega meen walaalkeeyo aniga wadanka waa ka maqanahay labadaas wariyina wadanka way ka maqan yihiin abaha waxa fiicneed Soomaaliya joogta waa lagu wada yaqaanaa saa sheegta dadka dumacinta lambarkaagana ku qorataa walaalkeeyo markaan leedahay umada Soomaaliyeed qofkaana xanuunsan lambarkaaga ku qorataa iyo akoonkaaga aad ku qorataa ma fahanti saaxiibkeeyo oo qadiijo afgooye ee jirta afgooye degantahay subax alla keeno way soo bixi jirtay muqdisho imaan jirtay magaalada ay imaan jirtay way rafaadi jirtay walaalkeeyo lambarkeeda page walba ku qornaa saddexdiinaba lambara kala duwan maana ku soo qoran waxaan nahay dad masaakiin ah brother oo qofka bilaadanka u naxa waan ka damqan gabadhaas walaasheena inaana ka aamusnana qalad ay nagu tahay way nagu aamintay abaha waad awooday 16 ina ku subato ina hooy qadiijo lambarkeeda aad wacad aad xaqiijiso waa la hadash hooyo maxaa ka qaldan warka ma beenba maswaarun ma lagu qaraabanaya ina maamada dhahdo muqdisho imaanaysa subax alla keeno walaalkii waa la fadhiisan kartay baabuur aan leedahay la dhahay bajaaja qaada kartay kaamirada la kala bixi kartay ummada Soomaaliyeed dhinaca ugu tuugi kartay dhihi jirtay hooyadan Soomaaliyeed caawimaad u baahan tahay caawiyo walaalkeeyo ana ugu xumahay waxaan rabaa ina wax idin kula tus waa ma santahay walaalkay liibaan aadan liicaato abaha inuu duro hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo ilmeynaysa maxaa ku kalifi kara gabar walaashiis oo kala ah oo u xiran nin arxan daran oo magafa ah oo dhibaateynaya oo ugu hanjabaya inuu dilaayo oo garaacay inuu beensado 30 kilomitir ee Muqdisho u jirtaa abaha hadii uu tuhun hayo muxuu u wici waayay teleefanka liicaato uu soo bandhigay midka aniga u soo bandhigay kan cali aadan u soo bandhigay oo hal isku ah muxuu gaariga uu wato shidaal intuu ugu shubto afgooy u teegi waay muxuu intuu bajaaj qaato uu ugu teegi waay afgooy uu soo xaqiiqsan waay waa $1 iyo wax ka yar kaba soo tag abaha wuxuu doonayaa inuu warkaan u beeniyo maadaama dadkan dhibanayaasha ay masaakiinta ah aan asaga la soo marsiin soo isbaaracad muu ekaanayso hadii adiga qofka uusan adiga kula soo xiriirin oo ku dhihin walaal dhibkaas ay haystay ya caawi hadii aad aragto baraha bulshada dad kale oo ka caawinayo si walaalnimo oo si mutadawacnimo ugu gurmanayo macnaheedu ma been inay sheegayaan dadkaas dad lagu bartay been manihin ilaahana ma hadda iskale gabar Soomaaliyeed oo walaasheena oo dhiban oo joogta dal shisheeye oo la garaacayana inaan ka hadalno dhibkeeda dadku u soo bandhigno waajibna saaran waay waxa maanta ceeb kugu ah darxumo kuugu filan in adigoo aan nin weyn oo dadka Soomaaliyeed ee hadalkiisa aamin og yihiin lagu yaqiinay ina hadda u soo banbaxday ina hooyo Soomaaliyeed oo ilmeynaysa aad warkeeda been ku tilmaamto ina hooyo Soomaaliyeed oo u baahan caawinta dadka Soomaaliyeed aad ka hor istaagto Allah ma had u sugnaatay hooda gabadhaas dadaalkii lala galay oo liicaato uu bilaabay mira dhaliyay alxamdulillah waxaase waana kuugu filan walaalkii ما شاء الله داود فيديو قصو داوتي وانا عرقتي ايا فيليا ان وحدي لها بوقاس اي قيلداس نهلكاس iskaga xara waxaas ma fiicno kulay waxa jeclahay inuu abaha qaladkiisa uu soo arkay oo misna uu iska soo ka keeni doono cudurdaar amaraali gelin oo halkaas ka soo bixi doono fiidiyowgaas uu soo duubay oo sidaas u hadlaayay iyo sidoo u dhaxayay adinka waa arkayseen mana wacnayn asoo weyn ah inuu saas u hadlo isna qof uu ku kacsan yahay
oo ula hadlo ina arintan aan ku sii fogaado ma jecli balse laakiin waxa fiican qof walba hadal walba intuu dhihi lahaa qofkaas ka aarsi intuu is dhihi lahaa inuu iska daayo oo sida wanaaga ay ku jirto uu hadlo oo kaliya waana ka xumahay asxaabteyda qaaliga dhamaan ku xiran youtube-ka iyo channel-ka Diiqgabad Official waxa idin ka codsan lahaa in maamadan caawisaan oo u istaagtaan qof walba wuxuu awoodo caasiisaan soo dhawaad ayaa idin leeyahay fiidiyowga maamadan waa arkoosan siina daawada insha Allah waa idinka kala baxaya khayr badan ayaa idin rajeenaa lambarkan meesha uu ku qoran yahay hala caawiyo maamada السلام عليكم أنا أمد الصومالية waxaan ka codsanayaa aniga waxaan ku xanimanahay gabar Soomaaliya waxaan ku xanimanahay Liibiyo meel xun aan ku jira godka 17 ayaan ku xanimanahay ayaan ku xiranahay umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan aniga xabad ayaa ugu socoto waa daragtiin waan xiranahay saas oo dhibaataysanahay mid kale waxa idin sheegay aniga waxaan haystaa 8 maalin oo qor ayaan haystaa 8 maalin haddana waxa iiga soo diray aniga waan dhimanayaa because أنا الله ما نجوا حبض لي يقولوا فطور ماذا حلا يقولوا فطي معاذ الله إذا استيد ما نطلع قبتي هدي أي لما تنا أنا وقت يوم كي أو لما ذني حبض أي اللي يقولوا فني يعني كوحمنا مخر وقل هذا معارض كي أو هذا كسر جد الدولة الليبية هو صاير هستان وأدين بريا عمد الصومالي وحنا كسنة سيد أو نحريست لين يجود باديان عدو عندي سأل كجرو